السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن صاحبي من بجوكتان waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin wada caafimaad qabtiin. maanta waxaan rabaa inaan sameeyo haddii la yiraahdo ama ayna tuso sida ciwaanka kusoo aragteen sida gmail cusub loo sameeyo. Okay, haddaba kusoo dhawaada muuqaalka. magacaygu waa Cabdi Xuseen Cabdi Bulsho. haddii ay tahay markii kugu horreysay ee halkan ugu soo booqatay, fadlan ha iloobin inaad channelka subscribe saartid isla markaana gambaleelka furatid. sidoo kale u share garee saaxiibadaada si ay muuqaalkan uga faa'iideystaan. waxaan tagi doonaa Google ayaa halkan ku qori doonaa. haddii uu Google kuu furan yahayna okay waaye. halkan markii aad tagtid kadib meeshan ayaa waxaad ku qori doontaa Gmail markaa sidaa u qortid waxaad dhihi kartaa sign in amaba sign up amaba Gmail oo ku dhaafan kartaa. haddaa sign up dhahdi xataa laba jeer wuxuu ku geyn doonaa halkan. waxaad dhahaysaa create new account. okay, markaa account cusub aad u dirsato halkan ayuu kusii keeni doonaa. markuu halkan ku geeyo meeshan ayaad waxaa ku dhufan doontaa create an account. marka halkaas aad dhahdid meeshan ayuu ku keeni doonaa, laakiin haddii uu Gmail kale oo kaada ku jiro waa uu soo kici doonaa sida haddaba uu soo kacay kan. waxaad samaynaysaa qaybtan ayaa furaysaa, kadibna waxaa leedahay hoos ayaa usoo soconaysaa, waxay leedahay add another account. another account markaa dhahdid halkan ayuu keeni doonaa, kadibna waxaad dhihi kartaa use another account ayaa dhahaysaa. markaa dhahdidna halkan ayaa waxaad dhihi kartaa create new account. haddii adi uusan kugu jirin oo marka u horeysa uu halkan ku keenana create new ayaa dhahaysaa. kadibna waxaad dooranaysaa for personal use, for child, amaba waxa uu samaynaysaa for business. ani hadda waxaan rabaa inaan dhaho tusaale ahaan in aan ku qoro ama aan doorto for personal. marka intaas sameeyo halkan wuxuu ku leeyahay magacaada geli. okay, magacayga ayaan rabaa inaan geliyo. waxaan leeyahay Cabdi. last name-kaada halkan geli ayuu ku leeyahay. waxaa leedahay Hussein. okay, Cabdi hataa weyneyn kartaa adartid. alright, intaa markaa sameyso waxaad dhihi kartaa kadibna next. markuu halka keeno waxaad sheegaysaa adi date-ka ama waqtiga aad dhalatay. waxaana shardi ah hadda ana waa sii qoreynaa in maxaa lihi jiray uusan qofka ka yareen 18 sano uusan ka yareen. okay, haddii uu 18 sano ka yaryahay wuu kugu dhigi doonaa. okay, qaybtaana fur haddana genderka male iyo female waxay tahay dooro. annaga male aan dooranay, kadibna waxaan leenahay next. intaa markaa sameyno halkan wuxuu ku leeyahay Gmail-ka geli. okay, Gmail name-kaada geli. okay, anaga waxaan dhihi doonaa Cabdi Hussein. okay, waa hadduu kaa yeelo waa arki doonaa. hadda annaga intaan gelinay laakiin in la qaataa qiyaasti doonaa. kadibna waxaan dhahaynaa next. laakiin wuxuu leeyahay waa la qaatay saa ujeedid. halkaana marka waxaan gelinayaa, waxaan ku darayaa waxa la dhaho 2024. okay, Cabdi Hussein 2024. kadibna waxaan leeyahay next. okay, weli wuxuu leeyahay Cabdi Hussein 2024 wuu jiraa uu leeyahay. okay, bal marka waxaan leeyahay engineer Cabdi. waxaan dhihi karaa markaas 2024 ayaan dhahay. kadibna waxaan dhahay next. كل هذا كانوا يقاطي. كدبنا حاجة قلنا يسا باسوير كاغا ايا قلنا يسا. اوكي، باسوير كاغا ايا قلنا يسا. كدبنا انت باسوير كاغا كعلنا يسا. اوكي، هدي او بانتا انا داركت باسوير كاغا شو ايا جيكا سارسا. كدبنا وارك دونتا. كدبنا انا وحلان هذا النجستي. انت مكان انا وكله ريكفر ايميل قلي. هذا ريكفر ايميل او بانتا انا وقليني. هذا أبغى escape يا اسكت هيسا. كده بنادي حولي عبد حسين أقولها إيميل كان وإنجنير عبد 2024. كده نحدي كرتان نجست. أوكي، وكنا مركب حدي كرتان يجري وأذكر عني. أوكي، نو تانكس ده almost وأسميه جيميل عصب أيو نسميه. وكنا جيميل عصب workspace kiisu Google ayuu noo sameeyay. waa kana. alright, soo jeedin inta daafurno waa kana engineer Cabdi 2024@gmail.com. message ugu horeysa noo soo direen Google community waa kana. okay, waa kana ujeedin. marka waxaan rajeynayaa in ardayda qaarkood aan garanaynin sida Gmail cusub loo sameeyo inay hadda arkeen ama ay fahmeen. waxaan sidoo kale sameyn doonaa haddii la yiraahdo
sida gmailka haddii aad baasweerkiisa ay lowdid isla markaana uu taleefonka ama computerka ugu jiro sida baasweerka loo bedelan lahaa. sidoo kale waxaan kusoo diri doonaa haddii la yidhaahdo sida gmailka kaa dhumay ee loo soo celiyo ama recovery loogu sameeyo. haddaba mar kale aan ku xasuusiyey fadlan muuqaalka haddii aad ka heshay like saar una sheer garee saaxiibadaada aad oo mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.